السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaa miiska inoo saaran barnaamij aad iyo aad u xiiso badan. barnaamijkan oo u baahan ka hadal dheeraada iyo weliba faahfaahin. oromadu ma dalkay rabaan se waxay rabaan dadka? maxay tahay sababta inagu soo duulayaan iyagoo inaga dhaqaalo badan, inaga wadan ballaaran, sidoo kale ay si dhuun daloolaan caalamka kale? sababtoo ah waxay u badan yihiin kiristaane. ma og tahay inay dhaqaal ahaan ina dhaamaan? ma og tahay inay ku socdaan dalka? ma og tahay inay ina necab yihiin weliba si aad iyo aad u daran? ma og tahay inay ku soo badanayaan dalka sannad kasta iyo bilo kasta? waxaan isku dayayaa inaan kugu soo kabo dhowr daqiiqo inta aan kuu sheegay in kaleba. haddaba Itoobiya warshadaheeda iyo dhulkeeda dhaqaale aad bay u tiro badan yihiin, mana aha dal wax inooga baahan iyagoo hawlo kale wata mooyaane. haddaba waxay ku socdaan waddanka sidii ay ula wareegi lahaayeen haba dheeraatee. mid yar oo Itoobiyaan ayaa la weydiiyey waddankan maxaa la dhahaa waddanka Soomaaliyeed. waxa ugu jawaabay waa waddankii dacarta uga jeedo waddanka Itoobiya. manhajkooda waxaa loogu dhigaa inay waddanka Soomaaliyeed uu yahay waddan Itoobiya ka mid ah. sababtan waxay dhahaan marka hore waxaa la odhan jiray ardu xabasha. marka hadduu ardu xabasha yahay, annagu xabashi baanu nahay, waana waddankii xabashida. marka annaguunbaa leh ee xoogba marka hore lagaga qaaday, haddeerna xooggii ayuu baanu ku soo ceshanaynaa. badankoodu muslin maaha oo diinta muslimka maba haystaan. badankoodu waa kiristaan, masiixi iyo qaar bilaadiina, waana sababta ay u kaalmeeyaan waddamada shisheeye. waayo gaalku gaalka u hiiliyaa ee muslimka ayaan muslimka u hiiline. sababta kiristaannimada ay ugu hiiliyaan oo gacan ku siiyaan wayna ilaashtaan. haddaba qaarkood waa bilaadiin oo waxay arkaan ay iska caabudaan. qaar ayaa la sheegayay caabudo fanaan la odhan jiray Bob Marley oo ay dishay maansuuniyaddu. waxay dhaheen waxa u yimi magaalo tuulo ah oo la dhaho Jumeka. markuu saa magaaladii u yimi ayaa magaaladii uu roob helay, dabeedna ninkii bay caabuday sidii ninkii bay u caabudaan. marka halkaa waxaa laga garanaya inay dad bilaadiin yihiin oo aan meelba ku tiirsanayn. kuwaasna waxay sugayaan innaga oo inaynu soo muslimino oo diinta gaadhsiino waa innaga. haddaba aynu u soo galno xagga dhaqaalaha, waayo taasaa innagana khusaysaa iyo waxay nagu soo kordhinayaan. haddaba qofka Itoobiyaanka ee waddanka Soomaaliyeed jooga hadduu maalintiiba qaato $5, waa $5 oo keliya. xitaa waxaa la sheegay qaar qaata raashin, qudaar, laakiin inagu waxaan ka soo qaadana qofka Itoobiyaanka ee maalintii dhan wareegaysanaya $5 ba ha qaato. bishii muxuu qaadanayaa $150, sanadkiina $1,800. bal haddaba maxay u dhigantaa intaa meenu qof Soomaaliya oo walaalkeena aanu ka qatanayn. mid Itoobiyaan oo waddanka lahayna wuu qaadanayaa. lacagtana sidii la sheegay waxaa lagu celiyaa waddanka Itoobiya. Itoobiya waxaa la odhan karaa waa cadowgeena sokeeyey. waxaan maqli jirnay cadow shisheeye. nacaybkaana waxaa sababay halgamayaasheenii Soomaaliyeed ee dagaalka la galay ee gaadhsiiyey ilaa Addis Ababa. haddaba nacaybkay qabaan aad buu u fara badan yahay. waxaanay gaadheen heer dadkeenna ay goosuu xanuunayaan ama taga ay kala baxaan intaba ilkahoo dhan, dabna ay u soo geliyaan qaar lafaa. sidoo kale ay qaar kale kala baxaan keliyaha, ayna u soo geliyaan qaar faaga. ma oggola in qaadka laynaga joojiyo ama qaadka aynu iska dayno. waxay leenayaan haddii kale Soomaali galbeed, yacni kuwaa la dega. ilaa noloshooda ayaaba ku tiirsan khamri, xashiishad, hilib doofaar iyo qaade. haddaba horaa loo yidhi hadal badan ahaan ma buuxshay. waxaan soo gudbinayaa 4 qodob oo aynu kaga maarmi karno Itoobiyaanka iyo soo qulqulkooda. lambar 1, in haba yaraatee wax dhaqaalaha aan la siinin, xitaa aan gacantaba loo taagin, oo raashinka iyo qudaartiina waxaan la siinayo lagaba daayo. sababta uu sahabar wacanayaan oo waxay dhahayaan waddanka Soomaaliyeed waxbaa lagu bixiyaa ee soo yaaca. in la raafo oo waddanka laga saaro, laguna daadgureeyo candhameedlayaal. in wacyigelin bulsho la sameeyo oo meel kasta laga muxaadireeyo, iyo in laga wada eriyo shaqooyinka inoo hayaan oo dhan si ay u nacaan dalka. halkudhigeenu waa yuuguran dahabkeenna gaal shisheeye ee ha ku caaqiyaystaan carruurta dalkeennu. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.